qofka raba inuu madaxweyne noqdo oo tartamaya wuxuu madaxweyne raba inuu ku noqdo lacagtii ummadda Soomaaliyeed lahayd waxa xaqiiq waa lacagtii mushaharada dadka ay qaadan lahaayeen lama siinayo 10 bilood waxa lagu galayaa campaign xaraan ma dhashay moogta qofkii waa laga shaqeynaya lacagta lagu galo campaignada oo dadka waliba fadhiya xafiiska waa lacagtii ummadda ay lahaayeen oo loogu talagalay gabadhaas masaakiinta ah oo uu kale in lagu nafaqeeyo ilmaha shirka ah oo saqiir ku dhimanaya in lagu nafaqeeyo lacagtaas lagu galaa campaign waa dhaqan jira tan labaad oo Soomaaliya ka jirto waxay tahay qaran qabiil ninka qabiilkiisu dib ugu noqdaa wuxuu yiraahdaa tol hadaan nahay reehbel iyo meesha laga qabsanay lacag hal iyo aruriyo ganacsatada soo ordaysa marka ninka ay siinayaan lacagta ganacsatada nin ay raba inay qortaan ma aha markay businesska ka hadlayna laakiin waxay rabaan Soomaaliya dul dhigaan 12 milyan oo qof ay rabaan dulka ay dul saaraan qabiilka waa ka caya marka waxay siinayaan ninkii lacag marka taasna waxay ahayd wax jira oo dhab ah mid saddexaad lagu soo biirtay in qofku uu yiraahdo qabiil iguma filna waxooda xafiisna ma fadhiyo hadda oo aan wax ka qaato oo aan campaign ku galo dawladda ay caawinayso marka haye warqad cadaan wataay wax ku qorto idinkan halkaan iska fadhidaan jeebkiina waa idin xiran yihiin martaa inaa wax ku darsataan moogta ninkaasna dal hebel yu aaday dal hebel Soomaaliya danu ka leeyahay warqadaas wax lagu qorayaa marka hadda wax leeyahay war ninkaan nin Soomaaliyeed ma ahayn muxuu wax u haleenayaa ma ninkaan wax ma haleenayo ummad kale u shaqeeyaa laakiin ninka idin ma shaqeeyo maxay idinku wax ku badarsan that's the fact idinku waxa rabtaa inaad wax la qaybsataan isaga isna wuxuu yiri ana waxaan shaqaystay maxay yeelay dawlad X yaa lacagtan isiisay waxay ku heshiiyeen adiga ma ogid midaan afraad aan bilawnay marka qaran marka waa mid xoog leh oo aan qabiil ahayn oo lacag umad laga soo xaday aanan ahayn dawlad X loo tagayo leeyahay maxaa Soomaali ka rabtaan aysan ahayn oo ah waxaan isku tashanayno oo idinka aad leedihiin mashruuc aad idinka leedihiin oo hadduu khaldo qofkaas aad leedahay war ninkan in kaan Allah ku rido lacagtii caruurtii aan caanaha u gadaayo intuu qaatay iyo waxaan khalad sameeyay qofkii markii aad ka soo baxayna waxba ku leedahay wariyaa waxaygii aan ku siiyay waxba u sheegan kartaa laakiin nin umad kale ee kansatay waxba kuma leeyahay waxba kama sheegi kartid marka waxaan leeyahay waxay ugu darsada aniga waxay ugu darsada مشروعاً إذا إسكاله مشروعاً إذا إسكاله إذا كالذين شقينا يا عروتنا الله شقينا يا إذا كإسكاله دالكاس دولة دي سنة إذا كإسكاله وحقاد لوجه الله وحلي لها دولة دي هبل دولة دي هبل دولة هبل مرة دولة دي إذا كإسكاله 12 مليون أنا 1% عن هذين يعني بس هذا شرح الوافي عن تاي بقول كيما كنت هذا هو كسي في عن تاي وعن هذين يا بقول كيما هل 1% ومشروع عن سكال وماشي وجوه سيسوي لكن وعن هذين بقول كيما بقول عن هذين لكن ما كيقول لي دته هدي أوين بقول كيما هل ده المرة بلا مرك